الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أباره معناها حويان لحدني شنتي أيان دوسياس قرآن كأقلي معناها حويان إلا معناها حويان لحدني السقالكي تضباطن كينا قرآن كوادمي ما شاء الله. علماء الصومالية علماء بدن oo caan ah ayaa jirta oo hab qaaday oo macnaha xooyaan diintan wax ku soo biiriyay marka fiiriso ana waxay wax ka soo barteen macnaha meesha la yiraahdo dir dhabe iyo abari iyo jigjiga dadka halkaas ka soo bartay ahayn dadka halka wax ka bartay waxa kamid ah macnaha Sheekh Maxamed Macallin markiisii hore dugsi quraan ku soo dhameeyay baydhabo agaarkeeda hooyadiis ee xameynay kadibna xagaas u wareego cilmiga ka bartay sidoo ku sheegay taariikhdiisa BBC ka duubtay 1994 kii waan filayaa waxa kale oo jiray Sheekh macnaha Maxamuud Garyare asagana macnaha xarakadan islaaxa asaas u ahaa ilaa haatan nool Toronto ku nool ilaa cimriga uu ziyaadiyo asagana halkaas waxa jiray nin wasiir noqdo Sheekh Cabdiqani la dhigi jiray oo wasaaradii macnaha awqaafta waqtigiisii aad bar macnaha waqtigeedii ugu horeeyay noqday marka la badnaa macallin aniga ii dhigay macnaha xooyaan tafsiir waxaan ka wadaa Riyaal Saalixiin iyo akhriyay Sheekh Ibrahim Suuli ayaa kamid ah mawlidka caan buu ka ah Soomaaliya waxa la akhrin jiray macnaha xooyaan kitaabka burdaha la dhaho nabi amaanka ah isla markaasna macnaha waxyaabahan ku xasuusiyaraanteeda waxa kamid ah masaajidada markii mawlidka lagu dhigayo xalwad iyo rooti iyo waxyaabo ilmuhu jecel yihiin ayaa la siin jiray marka waa iman jirnay taariikhda nabiga laga sheekeyn jiray macnaha qasiidooyinka la akhrin jiray marka arrin maxay ahayd la tirsado maalmaha mawlidka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada barnaamij gaar ah. Barnaamijkayagan waxaa noogu marti ah Sheekh Saahid. Sheekh Saahid waxa uu ka mid yahay waxgaradka aqoonyahanka waliba markay noqoto dhanka diinta islaamka iyo cilmiga kalaba. Sheekh Saahid waxa uu ku nool yahay wadankan Mareykanka hadda. Waxaan rabnaa inaan ka wareysano taariikh maanta u muhiim ah qof walba oo Soomaaliya oo ah taariikhda islaamka ama taariikhda islaamiyiinta ee wadanka Soomaaliya haday yihiin ururada ay dadka yaqaanaan ama sida al-ittixaadka akhwaanka islaaxa sida ay ku yimaadeen salafiyiintu aragtiyooyinka ku qotaysan diinta islaamka wadanka Soomaaliya. Sheekh Saahid marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijkan podcastiga ah waxaan rabaa marka ugu horeysa Sheekh Saahid inaad ku bilowdid adiga ahaantaada maadaama aanu ka hadlayno islaamka waxaad iiga warantaa yaraantaadii xagee ka bilowday barashada quraanka se quraanka kariimka ah goormaad dhamaysay. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أنا هرت وحن كوكوري مقالة مقدشو كمان دهلانين سأنيجو لحجرها عيان إيمت دكسي وجهري قرآن عن كبلابه وحن كبلابه حافظ هذن سيبا معنا قيبت كوارت لده معلن كينو حلو أورنجري معلن محمد ليلون معلن كسو جيدو أها كونفور قلبيت إلهو نحرستو ودنتي marka abaarihi macnaha xawayaan 65 ayaan dugsigaas quraanka galay macnaha xawayaan ilaa macnaha xawayaan 69 kii 70 kiina quraanka waa dhameeyay intii macnaha xawayaan hore dugsiga kaliya dhiganay laakiin markii dambe waxaan dhiganay school
oo adeerkay iska lahaa sheekh cali darwiish ilaahu naxariisto madrasatu raxma la dhihi jiray kaasaan waxaan ka bilaabay fasalka koowaad iyo fasalka labaad fasalka saddexaadna waxaan ku wareegay iskoolka dowladda oo ku yaalla xaafadda waaberi oo la dhihi jiray ansaloti sud kadibna dugsigayga dhexana 21 Oktoobar. waxaan rabaa barashadaadii qur-aanka sheekh saahid arrin aada u muhiima inaan kaa weydiiyo wax oo ah xilligaa isaga ah markaad dugsiga qur-aanka dhiganaysay wax nooga sheeg waxaad ku baratay barashada qur-aanka xilligaa buug iyo qalin mise waxaad ku baratay loox barashadaadii qur-aanka waagaas macnaa wax weeyaan waxaa lagu baran jiray loox iyo qalin iyo khad la riiqo oo laga riiqo macnaa wax weeyaan malmal ama macnaa xabag isla markaasna meel waxaa jirtay lugaha baabuurta ayaan qur-aanka ku dhaqi jirnay oo looma ogoleen macnaa qur-aanka khadkiisa inaan dhulka ku daadino meeshaasaa markaa lagu samayn jiray qalin iyo loox baanan ku dhigan jirnay mar waxaa jirtaa suurad aan xasuusto ilaa hadda yaraantaydii aan maskaxdayda ka go-in suuratulfatxi ama inaa fatax aayadda odhanaysa ijcal aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiyata xamiyata aljaahiliya suuraddaas markaa maalintaas macalinka ii yeeriya aan qortay macalinka waxaa u yimid nin sawir qaada ah aniga macalinkayga sawiruu naga qaaday I wish inaan sawirkaas heli lahaa marka loox iyo qalin baa lagu baray waayahay arrimahani waxay xoogaa igu muhiim yihiin isbeddelkii ku dhacay dabcan dugsiyada iyo isbeddelkii ku dhacay barashada qur-aanka xilligaas gaar ahaan dhinaca macallimiinta haddaan si toosa kuu weydiiyo adigu markaa aad dugsiga qur-aanka dhiganaysay ama ma xasuusataa ama ma garan kartay macallinkaaga xarakada markaasi islaamiga ah ee waddanka soomaaliya ka jirtay sida tusaale ahaan qaadiriyoo kale saalixiyoo kale waxaan malaynayaa xilligaasoo kale culimmada salafiyiinta ma ayan dhigaynin dugsiyadii qur-aanka xilligaaga jiray way jireen macnaa waxa weeyaan macnaa waxaa jirtay qaadiriyaa jirtay qaadiriya weysiya la dhaho oo xamar agagaarkeeda u badnayd sida sheekhii caanka ah sheekh macalin nuur oo markii dambena qubuuro sameeyey qubuuraha macalin nuur loo bixiyey sheekhaas weyn oo xaafadda macnaa waxa weeyaan howlwadaag masaajidka biyamaalow meel dhihi jiray macnaa bays uu ahaa macalinkeena kama tirsanayn laakiin haddana macnaa waxa waye maalmaalin wuuna geyn jiray meeshaas marka laakiin macalinkay wuxuu iska ahaa macalin macnaa wax baydhabo wax kusoo bartay isla markaasna sidoo kale afka caruuskana wuu garanayay marka ma aqaan inuu xaggaasna qur-aan u doontay caruusyada iyo oromadana waa laga yaabaa marka saasuu ahaa maasha waayahay adiga xusuustaada waxaa igu maqaalo ah barashada diinta ama barashada qur-aanka inay gaar ahaan culimmadii hore ee xirta ahayd mararka qaarkood u safri jireen ama wadaadka waxbaraya naftigiisa uu safri jiray si uu dad diinta islaamka uu u gaarsiiyo ama uu qur-aanka uu u baro wax ma nooga sheegi kartaa culimmadii xilligaa soomaalida ahayd meelahay u aadi jireen inay ka soo bartaan qur-aanka ama diinta islaamka ama kutubta sida tafsiirka oo kale ama axaadiista maasha allah culimmada soomaaliya culimo badan oo caan ah ayaa jirta oo hab qaaday oo macnaha wax weeyaan diintaana wax kusoo biiriyey markaa fiiriso anaa waxay wax ka soo barteen macnaa meesha la yidhaahdo dir dhabe iyo abari iyo jigjiga dadka halkaas ka soo bartay ahayn dadka halkaa wax ka bartay waxaa ka mid a macnaa sheekh maxamed macalin oo markiisii hore dugsi qur-aanka kusoo dhameeyey baydhabo agagaarkeeda oo hooyadiis ee raxan weyn ahayd kadibna xaggaas u wareego cilmiga ka bartay siduu ku sheegaya taariikhdiisa b b c-du ka duubtay 1994kii baan filayaa waxaa kaloo jiray sheekh macnaha maxamuud garyare oo isagana macnaha xarakadan islaaxa aasaasa u ahaa ilaa haatan nool toronto ku nool
ilaahay cimriga u ziyaadiyo isagana halkaas waxaa jiray nin wasiir noqdo sheekh cabdiqani la dhihi jiray oo wasaaraddii macnaha awqaafta waqtigii siyaad barre macnaha waqtigeydii ugu horreeyey noqday marka waa la badnaa macallin aniga ii dhigay macnaha waxa weeyaan tafsiir waxaan ka wadaa riyaal saalixiinka ii akhriyey sheekh ibraahim suuley ayaa ka mida adeerkay sheekh cali darwiisha ka mida waxaa ka mida sheekh cali suufi dadkaas oo dhan waa dadka xagga wax kusoo bartay waayo waayahay waxaa xustay waxaan rabay inaan kaa waraysto aadna waad ugu mahadsan tahay oo ah xilliga isaga ah kutubta la akhrin jiray waxaan kaa waraysanayaa xilligii yaraantaada ama xarakooyinka kale ee hore u jiray sida soomaalida caanka ahaa ama ha noqoto qaadiriyada ama saalixiyada dadka kutubta aadka caanka ugu ahaa dabcan way kala qaybsan yihiin marka ay noqoto fiqiga ama caqiidada ama luuqadda naftigeeda arbiciinka marka maxaad ka xasuusataa culimada iyaga ahaa kutubta ay markaasi aada ugu xiraayeen oo ay baran jireen ama ay beri jireen ardayda kutubta macnaa waxa weeyaan soomaalida akhrisan jirtay maadaama aan shaaficiya nahay madhabka shaaficiga dadku waxay ka bilaabi jireen safiina salaadka fiqiga safiina salaadka oo hab u qoran macnaha waxa weeyaan fudud oo ah shuruudu salaad sunan salaad macnaha waxa weeyaan arkaanu salaad mubdalaat salaad macnaha waxyaaba saas ah macnaha qofku baranayo oo macnaha safiina salaadka kadibna safiina nijaadka lagu xijin jiray kadib waxaa lagu xijin jiray kitaabka abu shujaaca la dhaho saasaa macnaha kutubta fiqiga loo akhrisan jiray naxwahana waa la baran jiray luqadda carabiga ajruumiya laga bilaabi jiray kadib waxaa lagu xijin jiray macnaha waxa weeyaan ajruumiyada marka qofku dhameeyo qadru nida wa ballu sida kitaab laha jira isagana saasaa marka isagana loo wada jiray kadib laamiyat alafcaal iyo macnaha waxa weeyaan sarfiga iyo ayaa la galan jiray marka waxaa jiray manhaj dhan oo la raaco oo xagga macnaa fiqiga naxwaha luqadda carabiga maxay ahayd waxaasoo dhan leh oo musalsala meelaha lagu baran jirayna waxay ahayd masaajidada waa xasuustaa in dabcan masaajida oo dhan ama xamar ha noqoto ama magaalooyinka ha noqoto halka soomaalida ugu badan ay wax ku baran jireen masaajidka mawdaca iyo meel walba oo dee sheekh geed hoostiisa intuu fadhiisto inuu isku dayi jiray kitaabkaas markaas inuu dadka u akhriyo meelo badan laakiin dabcan masaajidada ama mawlacyada ayay u badnaayeen sheekh saahid waxaan rabaa wax badan inayn barnaamijkan kaga hadalno dadka soomaaliyeedna xoogaa wax badan aan fahansiino waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilliga adigu aad yarayd aan ka bilaabo intayan xarakooyinkan kale wadanka ayaan imaan waxaa jira waxyaale ka dhici jiray oo ahaa wixii mararka qaarkood saameynta weyn ku yeeshay xarakooyinkii wadanka yimid waxyaalahaasaan raba inaan wax kaa weydiiyo waxaa ka mid ah tusaale ahaan inkastoo ilaa iyo hadda la dhigo xuska mawliidka oo kale wuxuu ahaa wax caado ah marka xilligaa la dhigi jiray sidoo kale wax la yidhaahdo ziyaaro kale baan ka maqli jirnay arrintaasoo markii dambe waxyaalaha culimmada dambe aada uga hadleen ay ka mid tahay keentayna ismaandhaaf xoog leh labada xarako markaad adigu caruurta ahayd dugsiga qur-aanka aa baranaysay maxaa ka xasuusataa waxyaalahaas sida dhigashada mawliidka oo kale ama ziyaaradan wax loola yaqaan mawliidka waa caan buu ka ah soomaaliya waxaa la akhrin jiray macnaha waxa weeya kitaabka burdaha la dhaho oo nabi ammaanka ah isla markaasna macnaha waxyaabahan ku xasuustay yaraanteeda waxaa ka mid ah masaajidada markii mawliidka lagu dhigayo xalwood iyo rooti iyo waxyaabo ilmuhu jecel yihiin ayaa la siin jiray marka waa imaan jirnay taariikhdii nebigaa laga sheekeyn jiray macnaha qasiidooyinkaa la akhrin jiray marka arrin maxay ahayd la tirsado maalmaha mawliidka dhalinyarada yaryarna ay aada u jecel yihiin ziyaarooyinka waa jireen oo ziyaarooyin macnaha soomaaliya la aadi jiray ziyaarada sheekh awees sheekh macnaha nuur xuseen oo xaggaas jilib loo aadi jiray sheekh macnaha waxa weeyaan awees oo xaggaas iyo loo aadi jiray bakool waaba tegay ani markii dambe bakool macnaha magaalada biyooley
oo ololihiina loo geeyey waa tegey waa soo arkay inkastayna waqtiga aan tagnay ayna ahayn waqtigii damaashaadka iyo ziyaaradda aysan ahayn oo waqti iska caadi ay tahay marka waa jireen meelo kastana sheekhoya badan baa la ziyaaran jiray sheekhoya ayaa ka mida sheekh maxamed faarax oo macnaa galmudug iyo meelahaas ka mida baar dheer oo kuwaa jiray marka way badnaayeen siyaarooyinkaasna waa la aadi jiray macnaa aad bayna u firfircoonaayeen siiba qaadiriyada macnaa alqaadiriya la uweysiiye macnaa waxay ahaayeen macnaa dad macnaa nashaad fara badan haaya ay ahayn waayahay waxaan rabaa arrin kaloo aada u muhiima inaan kolley dabcan barnaamijkeena aan ku darno oo ah sida ay ahayd nolosha bulshada iyo sida ay ahayd dowladnimada culimmada markaa iyadu horta xilligaa horta joogay sheekh saahidow ama dibba haddaa u noqotid sida saalixiyada iyo qaadiriyada dib ugu noqotid waxaa la yidhaahdaa sayidkii oo kale allahu naxariiste sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu dabcan hogaamiye uu ahaa xarakad islaami ah afkaar islaami ah xambaarsan gumaysi la dagaalana ah xarakadaas sayidka uu ka tirsanaa waxaa la oran jiray dabcan saalixiyo wax yar bal horta saalixiyo wax nooga sheeg runtii saalixyada magaalada xamar aada umay joogin macnaa waqooyigay ku badan tahay dariiqada saalixiyada laakiin waxyaabay ku kala gedisayin waxaa ka mida macnaa sida ay u xadreeyaan oo kale siday macnaa waxa weeyaan markay xadreynayaan oo kale saalixiyadu waa dad macnaa waxa weeyaan iyo axmediyaddaba macnaa sidan qaadiriyada oo macnaa waxa weeyaan la bururaayo oo macnaa waxyaaba waaweyn la samaynayo oo macnaa waxa weeyaan jaanta laysla helaayo oo macnaa waxa weeyaan maysan ahayn kuwaas macnaa way ka fududaayeen axmediyada iyo saalixiyada maysan lahayn macnaa kuwan waa la bururaya qofka markii cabaar lagu jiro macnaa xadrada lagu jiro macnaa allah sida loo leeyay marka dadaaba suuxaayaba xataa dhulka ku dhacay marka waxyaabahaas waa laga yaabaa inay ku kala duwanaayeen laakiin mainly waxyaabaha kale ay isku khilaafsanaayeen haatan ma heli karo xarakooyinka xilligaa jiray siday ula falgeli jireen dowladda aanu nimaadno hadda tusaale ahaan waqooyiba haddaa kasoo tegtida xamar oo kale xarakooyinka markaa xilligaa jiray tusaale ahaan qaadiiradii oo kale wasaaradihii awqaafta iyo diinta oo kale culimo waxaa hayn jirtay qaadiriyada ah iyagu markaasi dowladda ma ka soo horjeedeen oo mise dowladdu mar walba way la shaqayn jireen xataa haddii afkaaraheeda dowladdu ay ka duwan tahay tan islaamiga may sida oo caanka ah waxa way la shaqayn jireen dowlad kasta way la shaqayn jireen wayna u dhowaan jireen macnaa nimanka madaxdaana way ka ducaysan jireen oo macnaa waxa weeyaan shiikhyaday ku xirnaayeen marka arrintaas dowladda iyo ayaka wax khilaaf ma ka dhexayn dabcan waxaan xasuustaa aabbahay dadka saraakiisha soomaaliya ka mid ahaa culimmada aad buu ugu xirnaa waxaan xasuustaa anigoo yar oo ii geeyey sheekh oo igu yiri sheekh oo wiilkan iigu ducee baan xasuustaa asagoo mar guddoomiye degmo meel ka ah marka ilaahay u naxariisto waalidkeen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laakiin waxaan rabaa marka dowladdii inaan u imaado waan xasuustaa soomaaliya dadku waxay ahaayeen dabcan dad islaam ah dhinaca kalena ummadda soomaalida ah waxaa dusha lagaga keenay dhaqan ka yimid markaas westrenka oo waa xasuustaa xamar waxay ahayd magaalada caasimada oo laakiin waxyaalo badan oo dhaqanka westrenka kaga yimid markaas talyaaniga ha noqoto yeelatay sida kalaabada oo kale marka waxaanan rabnaa qeybahan dambe inaan barnaamijkeena saameyn ku samayso marka adiga nin dhallinyaro ah baad ahayd xamar baad joogtay aniga kulle intaan xasuusto statemayadii caasimad bay ahayd aad marka maxaad ka xasuusataa dhaqamadii ka yimid westrenka ee ummadda soomaalida ah dhaqankeedii aanan ahayn soomaali ahaan iyo islaam ahaanba ee saameynta ku yeeshay ee markaan dambena ay noqon doonto wax xarakooyinkan kale ay ka dhigtaan ololo ay ka duulaan in la suuliyo ama la joojiyo waxa runtii waxa weeyaan waxaan ku soo kornay magaalada xamar waxyaabaha ugu waaweyn oo macnaa waxa weeyaan
وقفكو آد ياد معنا السمين جري حكمي ده هرت إن شنيمين لقوله شنيمين فر بدنا كنت علي حمر شنيمين بدنا كوي علي وقارنا أفلانت هندي قريان قارنا أفلانت كابويا iyo kuwa aan dhihi jirnay aflaan aan dhihi jirnay macnaa waxa weeyaan agent macnaa filin agenti aa socda caawa agenti means waxa waaye filmada oo bulisiyaatada ah oo ama buliiska iyo maafiyadii talyaaniga iyo waxyaabahaas marka aad bay u shidnaayeen shaneemooyinkaas aad bay u shidnaayeen waxaan xasuustaa baar la dhihi jiray oo downtown ku yaalo novagenta la dhihi jiray waxaa lagu soo dhejinayaa aflaanta habeenkaas socotoo dhan kuwooda hindiga ah kuwooda macnaa waxa waaye cowboyga ah oo macnaa ama filmadan ay westernka dhahaan spaghetti iyo western ay dhahaan macnaa waxa weeyaan kuwaas kale oo macnaa waxa weeyaan filmada caadiga ah talyaaniga iyo amooraha iyo jacaylka iyo waxyaabahaas leh marka shaneemooyinkaas aad bay u badnaayeen dhalintana aad bay u geli jireen weliba yaraanta lagu bilaabi jiray filinkii ugu horeeya aniga galay waa xasuustaa wiil walaalkeeya shaneema nasar shaneema laan ku galnay filinka xataa waxaa la dhihi jiray macnaa waxaa la dhihi jiray tarsan filimka macnaa ninka baadiyaha oo la koraayay maxay ahayd xayawaanada iyo waxaas ahaa marka taas waa waxyaabihii la samayn jiray waxaa ka mid a kubadda cagta aad iyo aad baa macnaa waxa weeyaan isbartiibooyinka loo tegi jiray isbartiiba caanaheedoo la dhihi jiray stadio coni baan la tegi jiray macnaa waxa weeyaan waxaa la fiirsan jiray macnaa waxa weeyaan xulalka iyo macnaa waxa weeyaan blueska iyo xoogga iyo waagaas sixtiyadii ciyaari jiray seventiyadii macnaa waxa weeyaan waxay isku bedeleen macnaa bakaal iyo horseed iyo jenya iyo otobaarka iyo macnaa kooxo macnaa waxa weeyaan munishibia iyo kooxo macnaa aad iyo aad u adadag ayaa jiri jiray macnaa marka taasna mid bay ahayd dadka kale ee suugaanleyda ah macnaha national theatreka furnaa oo runtii macnaha riwaayado la keeni jiray macnaha waxa weeyaan qabrigii jacaylka iyo macnaha waxa weeyaan shabeelnaagood iyo macnaha dhinacaasna dadaa ku xirnaa intaan macnaha waxa weeyaan waagii dambe aysan macnaha kuwii macnaha reer xamarka aynan ku soo badanin oo kuwii horeba ka sayid caleynin macnaha waxa weeyaan waagii hore macnaha waxa jiri jiray macnaha waxa weeyaan kuwa macnaha shabeelnaagood iyo macnaha waxa weeyaan qabrigii jacaylka iyo macnaha xuud baa laqay jacayl iyo waxyaabo badan oo saas oo sangub iyo macnaha waxa weeyaan niman kaloo badan ay samayn jireen marka taasna dadaa ku xirna waayahay waxaan ku weydiinayaa sababtay tahay waxaan ogahay inay ka ahayd mid ka mida oo lalayaashii ugu waaweynaa oo markii dambe ururadii islaamiga ahaa oo gadaal waddanka ka yimid waxyaalihii ay sheekh boqolsoon oo kale tusaale ahaan kulle xilligeygii markaan xasuusto waxyaalaha ay ku kaceen ama ay ka hadli jireen inay tahay isbeddelka weyn oo ku dhacay shacabka markaasi muslimka ah u arkeen shacabka inay qaadanayaan dhaqan western waxaan rabaa inaan sheekh saahido ku weydiiyo dhinaca dowladda naftigeeda haddaan u celiyo nidaamkii shuuciga ahaa see buu u saameeyey dadka soomaalida ah gaar ahaan culimada inay u arkaan nidaamkaas sidiisaba shuuciga ah inuu khatar ku ahaa nidaamka islaamiga runtii waxa weeyaan aniga nasiib waxaan u yeeshay inkastaan yaraa inaan dowladihii macnaa waxa weeyaan rayidka ahaa ee ka horreeyey macnaa waxa weeyaan kacaankii inaan soo gaaray oo runtii waxyaaba aan ka xasuusto waxyaabahan ka xasuusto waxaa ka mid ah doorashadii cabdirashiid iyo macnaa waxa weeyaan macnaa aadan cabdilla cusmaan ilaahu naxariis aadan cadde doorashadii maalinta markii la dooranayay life bay ahayd oo radio muqdisho t v ma jirin laakiin radio muqdishoa life usoo warinayay oo qofaa imaanaya markaas wuxuu leeyahay cabdirashiid cali sharmaak mid kalaa imaanaya aadan cabdilla cusmaan waa la tirinaya marka adeerkay oo dhintay hadda ayaa tirinayay aninoo ag fadhiyay waa dhegeysanayay marka waxyaabahaasaa ka mid a waxaa ka mid a in aabbahay mar uu ii waday macnaa waxa weeyaan waqtigii cabdirashiid oo macnaa waxa weeyaan boqor faysal oo yimid soomaaliya inuu airbortkana geeyo aan aad soo dhaweynay marka waxyaaba badan ayaa jiray aan ka xasuusto inkastaan ku soo hanaqaaday kacaankii marka waxa xamar markaas oo waqtigaas la joogo waxyaabaha laga baqan jiray waxaa ka mid a booliiska ronda la dhihi jiray habeenkii booliiska magaalada dhex wareegi jiray oo ilmaha meeshii ku ciyaarayaan iyo kuwa wax samaynayo iyo rondo waxaan dhihi jiray markaasaa la kala carari jiray xamar waxyaabaha kaloo ka jiray waxay ahayd
waa la isdiriri jiray dagaal oo xaafadaha iyo qoysas ahaan la isku diriraayo sida xaafadda wardhiig leh ugu darnaatee macnaa maanta dhan waxaa arkaysaa baabuur dad dhaawaca sido baabuur afleershi la dhihi jiro booliiska lahaa oo dad dhaawaca sido laisdilayo waxa la isku dilaayana xabad ma ahayn laakiin waxay ahayd baangad iyo midi iyo macnaa waxa waye bud iyo waxaas marka dad wada dakran iyo waxyaaba macnaa kayosaa ka jiray magaalada markaas si u fiiriso laakiin gacaankii markuu yimid wixii oo dhan waa istaageen dadkii waxay noqdeen gacaanka waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid a dadkii oo dhan wuxuu ku sameeyey dhaqan rog mobilization wuu bedelay macnaa xaafad kasta horta waxaa laga furay wax la dhaho orientation oo golaha hanuuninta dadweynaha af soomaali lagu dhahay golaha hanuuninta dadweynaha marka waxaa waay hooyooyinkiyaa iskugu imaanaya dhallinyaradiiyaa meel basket ay ku ciyaaraan loogu sameeyey macnaa riwaayadaha oo macnaa dadka tiyaatarka aan geli karin ayaa lagu dhigayay marka dadki macnaa waxa weeyaan waa la kiciyay hal dhinaca loo jeediyey in dadka ay shaqeeyaan inay iskoolo dhigtaan iskooladii qasabkaa la furay qof kasta oo iskool la-aan qofaan kari ma jiro marka hawl badan ayay markiiba ku dhawaaqeen guulwadaa la sameeyey oo markii hore lacag la-aan lagu bilaabay dadka ay volunteer ay u noqonayeen guulwade dharca cagaaran la siiyey markii dambena macnaa waxa weeyaan dee ciidanka guulwadayaashayba noqdeen way isbedeleen markii dambe qeyb ka mida guulwadayaashay noqdeen marka mobilization weyn ayaa lagu sameeyey marka kacaanka iyo dowladdu meesha iska qabteen waxay ahayd 1975kii markii wadaadada 10ka ah la dilay taas shacabka markaas intii hore macnaha from 70 ilaa 75 waxa kacaanka iyo dowladda is haystay ma jirin ama wadaadada iyo dowladda wax is haystay ma jirin laakiin markii dhacdadaas la yaabka la dhacday oo 10 wadaad la dilay isla markaasna isla maalintii ay laba diyaaradood xamar dhexdooda isku dhaceen oo xaafado dhan macnaha waa beri ka tirsan ay dudumiyeen guryo badan dad badan ku dhinteen markaasay bilaabatay